bilowga filimka waxaana la barayaa gabar lagu magacaabo Lucy waxayna ahayd mid ku fiican oo ku firfircoon dhanka waxbarashada waxayna leedahay walaal ka yar oo aad u foolxuma haddii jeerna waxa uu dhibi jiray walaashiisa waxa uu nahaa shaydaan dhib badan sanadkan ayaa sanadkii ugu dambeeyay oo ay dhigtaan fasalkan labadooduba waxayna bilaabeen ardadii inay kala cararaan maxaa yeelay waxa uu soo gashay macalimadoodii ayaa u sheegtay inuu daha ka qaaday in ardaygii keena darajooyinka sare la fariisin doono fasalada sare qof kastana waxa uu tagi doonaa halka ay darajadiisa dhigto intaasi waxaa dheera ardaydii keena darajooyinka sare in la sii doono abaalmarino qaali ah gabadhii Lucy la fadhiisay miiska aad bay ugu maseersan tahay maxaa yeelay waxay ahayd cadawga koowaad ee Lucy markaana Lucy iyo walaalkeeda waxay yimaadeen gurigooda waalidkoodna Lucy waxay u daryeelayaan si ka duwan walaalkeeda sababtoo ah Lucy waxay had iyo jeer mid wanaagsan halka walaalka jeerna uu ahaa mid yar oo fool xun oo faraq ahaa Lucy waxay waalidkeeda u sheegtay wax ku saabsan walaalkeeda iyadoo sheegtay in walaalkeeda uusan wax baranaynin maxaa yeelay markii isku kala joogo boodbood iyo foodo kaliya ayuu ku hayaa waalidiintiina waxay calaantay walaalkeedii ka yaraa kadib aabahood ayaa waxa uu miidka soo saarayaa gasaacad afka ka xiran wiilkii la dhashay Lucy ayaa isku dayay inuu qaato gasaacadii isagoo doonay inuu cuno waxa ku jira balse hooyadiisa ayaa ka siinaysa walaashiisa ma jeclina filimka ka dhaxgalo balse haddii aad weli muuqaalka iska daawanayso oo noo laagarin muhiim ay noo tahay haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir kadib habeenkii Lucy waxay bilowday inay furto gasaacadii balse aad ay ugu naxday iyadoo cabsatay waxayna gasaacadii si lama filaan ugu aragtay 5 qof oo yaryar ah waxayna bilaabeen dadkii yaryar inay hadlaan waxayna weydiiyeen adiga yaa tahay markay aragtay Lucy dadkan yaryarka waxay ku faraxday aragtidooda kadibna waa isbarteen dadkii yaryarana waxay u sheegeen inay had iyo jeer ku noolaan jireen gasaacadaha inta lagu guda jiray waqtigaasi gabadhii Lucy waxa wacaysa hooyadeeda waxayna mar go'aasatay inay arrintan u sheegto hooyadeeda kadibna waxay soo xasuusanaysaa sida ay walaalkeeda ugu tuuli jirtay alaabtii uu ku ciyaari jiray kadibna waxay go'aansatay inaysan waxba u sheegin hooyadeeda waxayna markaas u timid hooyadeeda waxayna ku soo laabatay miiska iyadoo markaas u timid dadkii yaryar waxayna markaas u sameysay libis isku mid ah inkastoo Lucy ay jeclayd inay sawirto sawirada farshaxanka mid ka mid ah asxaabtii yaryar waxa uu jecel yahay inuu isaga noqdo dhakhtar halka midka labaadna uu jecel yahay inuu isagana jaamacad ka qalin jibiyo oo wax barto halka kan saddexaadna uu jecel yahay inuu dadka waardiyeeyo maxaa yeelay waxa uu saad u jeclaa inuu ku dagaalamo seefta halka gabadha afraadna ay jeclayd inay markaas heesaa noqoto intaas kadib Lucy markay ugu sheekayeen wixii jeclaan lahaayeen inay noqdaan waxay u sameynaysaa guri yar oo ay ku noolaan karaan markaana Lucy waxay timid sawirteeda iyadoo markaas seexatay intaas kadib wiilkii jeclaa inuu wax barto ayaa markaas ku dhahaya aniga waxaan rabaa inaan wax barto waxaana doonaya inaan dugsiga aado kadibna Lucy waxay ka aqbashay inuu siga raaco waxayna ku tiri waad raaci doontaa waxaadna ii raaci doontaa biri dugsiga maalintii xigtay Lucy way soo baxday iyadoo wiilkeeda ku soo qarsay timaheeda waxayna markaas la kulantay gabadhii saaxiibteeda taasoo caadiga ku ahayd iyagoo markaana soo wada fadhiistay kursiga ay markaas ku wada fadhiyeen waxayna gabadhii u sheegtay inuusan maanta walaalkeeda uusan imaanin fasalka laakiin Lucy ayaa ugu jawaabtay aniga maxaan sameyn karaa haddii uusan imaanin dugsiga laakiin gabadhii waxay ku tiri waan baxayaa waxaan wax walba u soo sheegayaa macalinka maxaa yeelay macalinka wax walba ay u soo sheegi jirtay waxaana waqti xadirkaas halkaas la taagnaa wiilka ayaa markaas gacanta qabanaya saaxiibtii Lucy waxaana wiilkana doonaya inuu gabdhaha foodeeyo intaas kadib wiilka yar ayaa markaas jeebkiisa u galaya waxaana markaas ka furaya surwaalka isagoo markaas surwaalka ka ridaya waxaana markaas ku maasanaya caruurtii intaas kadib walaalkii Lucy ayaa markaas soo galay qolkii Lucy isagoo markaas wata eegiisa eegina markii guriga soo galo waxa uu bilaabay inuu markaana dul yimaado guriga ay ku jireen dadkii yaryar waxa uu bilaabay inuu markaana sheeriyo dadkii yaryar isagoo markaas guriga afka ku qabanaya kadibna luxaya dadkii yaryar waxay dhamaantood dareemeen inay halis ku soo wajahan tahay waxayna markaana halis ugu jiraan inay ka daataan guriga intaas kadib mid ka mid ah dadka yaryar ayaa soo qaadanaya seef isagoo markaas eegi wajiga gelinaya markaana walaalkii Lucy waxa uu markaas arkay in eegi uu dhaawacmay markaana Lucy walaalkeeda waxa uu markaas bilaabay inuu eegi daawo u raadiyo laakiin hooyadiisii oo qeylada halkaas ka dhacisay maqliisay ayaa markaas doonaysay inay soo gasho guriga laakiin walaalkii Lucy ma uusan doonin in eegaana hooyadiisa aragto waxa markaas eegi ku qaranaya meel markaana dadkii yaryar waxay barteen Lucy walaalkeeda dadkii yaryar waxay markaana garab ku siiyeen Lucy walaalkeeda inay markaas eegi halkaas ka saaraan iyagoo markaas eegi daaqada ka bixiyay habeenkii Lucy waxay ogaatay in dadkii yaryar oo mid ka maqan yahay intaas kadib Lucy walaalkeeda ayaa sidoo kale arkay dadkii yaryar waxayna markaana Lucy walaalkeeda u sheegaysaa wax walba kadibna walaalkii Lucy waxa uu dadkii yaryar ugu mahadcelinayaa badbaadintii ay badbaadiyeen eegiisa sababtoo ah waxay ka badbaadiyeen hooyadiisa
laakiin luushi walaalkeeda waxay u sheegtay in hooyadeedii laga dhaadhicin karo inuu eegaan halkaani sii joogo balse waa markii isaga oo imtixaanka iskuulka ka keeno buundooyinka sare waxaana laga rabaa inuu keeno 90% laakiin luushi walaalkeeda waxa uu ahaa mid aan waxaas oo dhan samayn karin laakiin mid ka mid ah dadkii yaryara ayaa markaas ku dhahay aniga ayaa ka caawin doona inaad imtixaanka keento 100%. maalintii xigtay luushi walaalkeeda waxuu galayaa imtixaanka isagoo markaas imtixaankii u qoriyay si aanan caadi ahayn maxaa yeelay waxaa caawinay dadkii yaryara halka macallimadiina ay rumaysan waayeen wax uu markaas sameynay wiilkaani yar maxaa yeelay waxay ogeed in luushi walaalkeeda uusan waxba ogeyn. intaas kadib macallimadii waxay sii wadaa inay imtixaamto wiilkii yara waxayna markaas sabuurada ugu qoraysaa xisaab balse wiilkii yara oo kaashanaya dadkii yaryara ayaa markaas tagay sabuurada isagoo markaas jawaabta si sax u soo qoriyay sabuurada. hadda luushi walaalkeeda magaciisa waxaa lagu daray ardayda ugu wanaagsan dugsiga waalidiintiisana waxay bilaabeen inay markaan isaga daryeelaan waxay markaas u ogaadeen inuu eygiisa guriga joogo laakiin luushi waxay aad u walaacsan tahay arrintaani oo dhan. roob ayayna dhex fadhisaa iyadoo markaas fikiraysa dhanka kale saaxiibteeda ayaa u timid iyadoo markaas weydiisay sababta ay iyadu murugaysan tahay waxaana markaas ku leedahay waa imtixaanka oo keliya imtixaankana ma go'aamin karo mustaqbalkeena waxayna gabadhii ku leedahay haweenweyn wax walba way hagaagi doonaan. kadibna saaxiibteeda waxay siinaysaa sawir kaas oo ah sawirkii luushi ay samaysay kadibna luushi waxay timid gurigeeda iyadoo markaas u timid dadkii yaryara waxayna markaas dadkii yaryara u keentay sawirka iyadoo markaas miiska saartay waxaana markaas u imid mid ka mid ah dadkii yaryara waxaana ku tiri aniga waxaan aad ugu fiicanahay wax sawirista laakiin macallimiinteeda weligood iima ogolaan doonaan inaan ka qayb galo tartanka farshaxanka sawirista sababtoo waxay had iyo jeer hubinayaan hoos u dhaca imtixaankayga. dadkii yaryaraa markii arrintaana maqleen aad ay ula murugoodeen saaxiibtooda dhammaantoodna waxay qorsheynayaan inay jebiyaan xafiiska macallinka haddii xafiiskaasi jebiyaan waxay raadin karaan alaamta riijiyeenta. maalintii xigtay dhammaan dadkii yaryaraa waxay yimaadeen xafiiskii macallimadda waxayna markaas helaan qalimaantii wax lagu sawirayay dhammaantoodna waa ay soo bixeen kadib markii ay soo qaateen laakiin mid ka mid ah dadkii yaryara ayaa halkaasi looga tegay balse nasiib wanaag macallimadii oo kusoo socotay ayaa qof kale u yeeray wayna baxday macallimadii laakiin luushi waxay qalimaantii siinaysaa saaxiibteeda si ay ugu qayb gasho tartanka maxaa yeelay saaxiibteeda ayaa la samayn doonta riijiyeynta farshaxanka waxaana markaan hal meel isugu timid ardaydii waxayna ardaydii bilaabeen riijiyeynta farshaxanada inkastoo ardayda darajooyinka hoose keena looma ogola inay halkaan yimaadaan laakiin luushi waxay tusinaysaa sawirka quruxda badan oo ay samaysay waxayna markaasi dhammaan tusaysaa martidii qof kastana waxa uu dareemaya inay gabadhaana ku tugan tahay khibrad badan laakiin luushi iyadoo waxaas oo dhan samaysay waa lagu qayliyey waxaana markaas lagu ciqaabay inay xaaqdo fasalka. intaas kadib luushi iyadoo halkaas xaaqaysa waxa u imaanaysa asxaabteedii la dhiganaysa dugsiga waxayna asxaabtaana hayaan kuwa keena darajooyinka hoose. intaas kadib luushi waxay imaanaysaa guriga waxayna asxaabtii yaryarkeed u sheegaysaa dadka saaxiibadeedaha kuwaasoo ku liita waxbarashada inay kor u soo qaadaan si ay markaasi ku baasaan imtixaanka waxayna qorsheynayaan in saaxiibada luushi oo dhammaan ku liita imtixaanadooda inay ka caawiyaan laakiin qorshadeeda ugu horeeyay oo ay ku caawin lahaayeen ardada waa uu ka fashilmay waxayna markaana raadinayaan qaabkii ay markaasi ku caawin lahaayeen asxaabtii luushi waxayna luushi soo galayaan boorsadeeda iyadoo markaasi kor u soo qaadaysa waxayna markaas asxaabtii yayareed ugu dambeyntii ku guuleysanayaan inay markaas ardadii ka caawiyaan buundooyinka sare laakiin macallimadda ayaa markaas hubinaysa waxay markaasi soo qoreen iyadoo hubinaysa inay markaasi qash ku keenaan iyo in kale inkastoo markaas ay ardada macallimadu u arkayeen imtixaan laysku soo diray maxaa yeelay waxay dabageli jirtay iyaga oo keliya. kadibna dhammaan ardaydii waxaa loogu yeedhiyay xafiiska maamulaha waxaana markaas la weydiiyey dhammaantooda waxaana sameeyey laakiin gabdhii luushiyeed ayaa dhammaan dusha saaratay eedimihii loo soo jeediyey asxaabteeda waxaana markaasi waalidiinteedii loogu yeedhay iskuulka iyagoo markaasi loo sheegay waxay markaasi samaysay gabadhooda laakiin luushi ayaa markaana maamulii la hadashay iyadoo markaas u sheegtay inaysan ahayn ardayda in sidaani loola dhaqmo maxaa yeelay sidaani cadaalad ma ahan inkastoo wataxadirkaasi ardaydaana buundooyinkooda ay hayeen kuwo sare maamulihii aad buu ugu xanaaqay kadib markuu arrintaasi maqlay laakiin aabihii luushi ayaa markaasi ku yidhi maamulihii fadlan gabadheeda ka eryin iskuulka maamulihii ayaa markaasi ku yidhi waa yahay maxaa yeelay maamulaha iyo macallimada ayaa midaani ku heshiiyey muran dheer iyo qajajac badan kadib waxay markaana kusoo laabteen gurigoodii waxayna markaana dadkii yaryara luushi u sheegaysaa markii iyada u yimaadeen inaysan imtixaan ka keenin buundooyin wanaagsan laakiin dadkii yaryaraa markii arrintaasi maqleen aad bay ugu murugoodeen waxayna markaasi ka qaateen boorsooyinkooda iyagoo halkaas ka soo dhaqaajiyey intii halkaasi ka bixin waxaa markaas u imaanaya walaalkii luushi laakiin mid ka mid ah dadkii yaryara ayaa markaasi ku dhahaya anaga waxaan ku ciyaarnay darajadii luushi mana istaahilno inaan halkaani sii joogno waxayna markaas heshiis ku wada qaateen dadkii yaryaraa iyo luushi walaalkeeda inuu markaas u ballamiyo dhammaan ka liidata dugsiga si ay markaas iga dhammaantooda garab u wada siiyaan maalintii xigtay carruurta iyo hal meel isugu keenay waxaana halkaas ugu yimid dadkii yaryaraa waxayna markaana bilaabeen inay carruurtii u khudbeeyaan intaas kadib waxaan aragnaa luushi oo markaasi dadkii yaryaraa ku ridi dhalo waxayna markaana halkaas ugu celinaysaa cadowga waxaana markaasi tagaya iftiinka gabadhii luusheed waxay markaas isku dayaysaa inay daarto iftiinkii laakiin halkaasi waxaa ka kacaya dab aanan caadi ahayn
waxaana markaas dhammaan gubanaya iskuulkii. Ardaydii iyo macallimiintii waxay bilaabeen inay markaas iskuul ka baxaan, iyadoo markaa ugu dambeyntii ardaydii ay markaana dhammaan yimaadeen bannaanka. waxaana jiray arday qaar oo markaas ku jira iskuulka, waxay markaas bilaabeen inay xarag ugu soo degaan iskuulkii. laakiin intii xaraggii kusoo degayeen waxaa markaas go'aya xaraggii. laakiin intuusan xaraggii go'in waxaa isku qabanaya xaraggii mid ka mid ah dadkii yareeraa isagoo markaas badbaadinaya carruurtii. waxaana markaas soo gaaraya dhaawac, waxayna kusoo qaadeen ambulance iyagoo markaas keenay isbitaalka. macallimadii iyo dhammaan dadkiiba waxay markaas ogaadeen inay markaana jiraan dad yaryar ah, waxaana xitaa ogaaday waalidkii Lucy iyagoo markaas ogaaday in dadkan yaryarka ay markaas sabab u yihiin inay ilmahooda noolaadaan. intaas kadib gabadhii Lucy waxaa la guddoonsiinayay ardayga ugu wanaagsan dugsiga, iyadoo markaas ay daawanayeen asxaabteedii yaryarka ahaa. waxayna ugu dambeyntii soo wadaysaa asxaabteedii yaryarka ah iyadoo markaas saaraysa helicopter, waxayna markaas ka daraysaa halkaas. laakiin mid ka mid ah dadkii yaryar ayaa markaas usoo tuuraysa waraaqad, waxaana waraaqadaasi ku hardhanaa sawirkeeda. halkaas way ka dhaqaajeen iyagoo dadkii yaryar halkaas isiga tagay. waxaana markaan halkaas ku dhammaanay filimkii. maanta muuqaalkana waxa waa mid aad u xiiso badan. intaan muuqaalkaana mid ka xiiso badan kulmi doono, sidaas iyo nabadiino.